عيد الصومالية عرنا وارثال أنا كلبان فرحان كوعسوم انتاي عيد الصومالية عرنا وارثال أنا كلبان فرحان كوعسوم انتاي والله سبعيون كسانا لدينا سودا وفرحانو أيو صومالي مديو سجيدا وذاقنا وسودا ويني أيو waxaan ku soo dhaweynaynaa garoonka caalamiga ah ee diyaaraduhu ka haadaan ee Garaadwiilwaal ee caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga fanaan weyn hore imikana siyaasi Soomaaliyeed Farxaan Muuse Cige oo ku magac dheer saad u taqaaneen Farxaan Xidig maanta hadda idinku noo timaadeen gacmo furan ku soo dhawaad leenahay dawladdu waa dawladdiini deegaanku waa deegaankiini xorriyatul qowlka iyo amniga iyo nabadgelyada iyo horumarkuba waa socdaa farxano wambaliyo salaan diraniga gudoon farxano wambaliyo salaan diraniga gudoon garbaha igu tahay naar maanta gaadiya wangaf wareegahayo garbaasarka geed sudhaa ninkiiga garab hadla maanta iga garnama beentayda farxaan marka waxay dhihi jireen minankaaga waaye gurigaaga waaye marka soo dhowaan ku leenahay aad iyo aad baan kuu faraxsanahay soo dhawo layd baa ka baxaya Soomaalinimo waxa astaan u ah calanka Soomaaliyeed ee buluuga inuu kulli faaqin yahay calanka dawladda deegaanka marka waxa weeyaan taasi waxay cadeynaysaa Soomaalinimadina in Ethiopia oo 120 milyan in ka muuqatiin oo Soomaalinimadiina iyo maarta dhaqankiina ku faantiin Farxaan Xidig waa nin ku suntan Soomaalinimada markuu ila hadlayay isagoo Sweden jooga inaan deegaanka Soomaalida horumarka ka jira soo daawado maadaama anigu aanoo yaraan ka tagay oo muxuu ahaa wadanka cadaadis haysto gumaysi ka jiro dadka Soomaalidu ay ka qaxeen marka hooyadii ummadda Soomaaliyeed baa tiin dhaqankii baad haysiin horumarkaad haysiin de role modelka ama ku dayashada in gobolada dalalka Soomaaliyeed haday noqoto Soomaali weyn iyo haday noqoto Djibouti ba meel walba waa la inagu dayanaa waa la inagu jiranaya madaxweyne Mustafa Maxamed Umar walibana waxaan yar ku siinayaa Saacad Wasiir markii sawirkii uu haysan jiray markaan Muqdisho joognay inuu ku fikirayay dawladda deegaanka Soomaaliyeed inuu isbedel ku sameeyo waan ka wada sheekaysan jirnay nin ay ku mudan tahay inuu sidan qabto marka jaaniskii Ilaahay uu siiyay una dabaqay hambal